Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabnaa halkaan inaan idinku tusno waxyaabaha aan sameyno. Gariga halkaa taagan u jeedaan waxaa saaran slaabyadii iyo stairs-kii oo jaranjarooyinka ahay. Meeshaan guryaha u jeedaan ee ka dhisan waa guryo dowladdu ay dadka u dhisayso. Marka sida ay tahay dadku waxoogaa lacag baa laga qaadaa yar kabacdi guryaha baa loo dhisaa. Marka insha Allah waxaan arki doonaa sida ay wax u dhismayaan. haddii aan ka bilaabno jaranjarada qaybtaas yar ee kuusan iyo jaranjarta qaybtan kale waa isku soo degtaan halkaas bay fadhi yar oo halkaas oo hal bulkeeti oo yariisa bay leedahay sida arki kartaan halkaa u jeedaa levelkaas baa gashan far keliya waaye waa iska bulkeetida aad u yaryar waaye marka bulkeeti guriga marka la dhisa waa laba bulkeeti oo si dhinac socota halka Soomaaliya aan dhisno anaka dhagax bulkeeti weyn aan gudaha gelino laakiinse meesha dhagax ma jiro kor baan aadina insha Allah waa arki doontaan marka halkaan timaado derbigan wuxuu u dhexeeyaa labada qol marka qaybtan nin baa iskale qaybtan kale nin sida idin sheegayna bulkeetigan waa kana qayb kamid ah bay jaranjaraduna ku fadhiday halka marka ay timaado marka guryaha waxay ka kooban yihiin hal qol marka qaybta hoose musqusha iyo kushiinkaadii iyo fadhigii aad ka dhigaysaa qaybta korna waa jiif waa arki kartaa ilaa kuma daraado guryadan aad bay u yaryar yihiin marka ilaa xoogaa badan bay socotay arki kartaa ilaa filaada dadku way wada gadahayaan marka haddii islaabyada meeshay fuulan aragtana bulkeetiga dhexe ee mar walba oo wuxuu ku fadhiistaa shubka sida arki kartaan dhammaanteed bulkeetiga banaankaana weli bulkeetigiisa kala banaankaa ka soconaya saa halkan ka arki kartaan kuwa kabacdi waa hal biyaan dhammaantood waa guryo aad iyo aad u qurux badan ما شاء الله كالس كاركه marka waa kala qeybo marka xogaa waana kala weyn marka qofba waxay ku xiran tahay lacagta uu dhiibtay ama uu hormarsaday arki kartaan marka guri walba ama qol walba waxa ku soo isisatay wuxuu la egyahay halka slab waxa weey sheegayaan 1 mitir oo waa dhirkiisa langifkiisa aad u dheer yahay waa 5 mitir 90 waa 6 mitir amal laakiinse balac ahaan waa 120 hal mitir iyo 20 cents waaye marka macnaheeda qolka dhan waxa waa 3 mitir amal marka qaybta jarjaradana waa loo baneeyaa oo isku dhagan yihiin meesha la isma dagaalo boos ay ciriraysa ma jirayso waxa waa nin walbaba qaybta uu gatay uu leeyahay iyadoo saas labada albaab isu saaran yihiin ee halkaas bulkeeti keliya u dhexeeyo sida arki kartaan ninkan albaabkan buu ka soo galaa kan kalena albaabka kale ku dhagan buu ka soo galaa stairs-ka halkaas waa ka arki kartaa in hal bulkeeti ay ku fadhiso hataa weli uu banaaya macnaha waxaa waaye markii oo la sameeyaa waxaa waaye waa inay baa levelka la saxaa haddii kala qalooc yar hadduu gala guriga ay ku dunta aad dhici karto marka make sure lagu sameeyaa waa la hubiyaa mar walbo intaan wax laga tegin halkaa arki kartaa waa gudaha waa kushiinka fadhigaaga wax walba halkaan ku naqaysaa iyo musqushii marka jiif rabtana jarjartaas baa iska raacaysaa kor baad aadaysaa insha Allah korkaas baa iska jiifan doontaa arki kartaa guryaha markaa daasaa u yeelina arkayso markii la dhameeyo ee la malaabeeyo ee la dedo quruxda ay qabaan waa la yaabaysaa waxyaabo badan oo aad la yaabays baa ku jiro halkaan ka jiro oo wadankeeni aan laga aqoonin insha Allah hadduu ilaahay yaraan waxaas waa in la soo sheegarayn doonaa waxyaabo badan waxaa keeno dudumka iyo dildilaaca guryaha ku keena inkastoo inta ay leedahay laakiinse kuma badno sidii wadankeena insha Allah qaybta dambana la soco hadduu ilaahay